magaalada Garissa oo ka mid ah deegaanada gobolka Nisalil ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynihii uga socday beesha Mamaasan iyadoona laga soo saaray go'aamo wax ku ool ah isla markaasna ka turjumaya danaha beesha Mamaasan. xiritaanka shirweynaha beesha Mamaasan ayaa waxaa looga kala yimid 45 tuulo ay deegaan beesha Mamaasan. qodobada laga soo saaray shirweynahan iskugu yimaadeen beesha Mamaasan ayaa waxaa ka mid ahaa taageerida xisbiga hadan talada haya kulmiye odayaashii oo qaashi iskugu yimid shirweynahan beesha Mamaasan oo iyagu hadalka isku daba maray ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waxa maanta farxad weyn ah dadweynaha sharafta leh ee beesha Mamaasan oo ka kooban ilaa El Sheikh ilaa Geestir dadka deegaanka ah oo maanta uqaashoodii iyo odayadoodii iyo xildhibaanadoodii iyo dumarkoodii intiba ay maanta halka heega ku yihiin. waxa sharaf weyn oo ah inaan maanta soo gabagabeeyno shirkii 22 casho socday beesha aqaladoodii baan anigoo cateeye Axmed Sheekh oo jiif aqal oo beesha Cabdiraxmaan Celeeya waxaan halkan ku nimeynay in midnimo Cabdiraxmaan Celeeya aan ku gaadhna halkan meel kasta oo joogno Cabdiraxmaan Celeeya ina waxba naga harin waa ku soo dhamaanay dhamaanta iyo meel kastana 18 tuulo oo Cabdiraxmaan Celeeya ku naal halkan waa ku wada nimeynay beesha Cabdiraxmaan Celeeya. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan sheegaynaa shirkii beesha Mamaasan oo maanta soo xirmay wuxuu furmay 23 bisha sagaalaad iyuu soo furmay maantana bisha tobnaad labadeedii baan joognaa intaa buu shirka ay socday beeshii Mamaasan ee shirkaa lahayd maanta iyay dhammaysatay way ku midowday shirka iyada oo danaheeda u gaara ka sheekaysanaysay danaha intii u gaara iyadu ay meel dhigatay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. horta maanta waxaa farxad weyn noo ah shirkii Cabdiraxmaan Celeeye ee ilaa bisha sagaalaad afarteedii iyo maanta oo joogno bishii tobnaad labadeedii intaa habba heeray joogtada aan ka shaqaynaynay si fiican ayuu noogu soo qabsoomay. halkaa waxaa ka soo bilownay beesha haddaan la furan yahay ceel sheekh ilaa Cabdulqaadir iyo inta u dhaxaysa beelweynta haddaan la furay Cabdiraxmaan Celeeye oo maanta baaha u dhan si fiicanna u ajiibtay horta taas waa farxad weyn noo ah. maadaama intaa loo fadhiyey waxaa la ruugayay oo la isweydiinayay danaha ummadda Mamaasan baa ayaa maaragtaa loo fadhiyey in kasta oo ka hadlaysay ma ahayn mid cadowtinimo dalalka jaarka iyo degmooyinka jaarka ku qaadaysa ma ahayn ee iyada danaheega iyo nolosheeda iyo cawaaqibteeda iyo halkay dalka Soomaaliland kaga jirto gaar ahaan gobolka Saylac ay kaga jirto ayuu bedelaheeda xalinaysay kuna jirtay danaheedii waxay ku bilaabatay midnimo iyo cadaalad ayay ku furashay qodobadeeda kaasoo isku dhaarsatay 25 xubnood oo caaqil iyo maarta cilmi bare. gabagabadii ayaa waxaa isagu soo afmeelay shirweynahan iskugu yimaadeen beesha Mamaasan isla markaasna halkaasi ka akhriyay qaar ka mid ah qodobadii laga soo saaray shirweynahan iskugu yimaadeen beesha Mamaasan. afayeenka guddida shirweynaha beesha Mamaasan Cali Cilmi Geele. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan idin akhrinayaa go'aamadii ka soo baxay shirka ugu muhiimsanay. horta shirkan waxaa qabtay beesha Cabdiraxmaan Celeeye ama Mamaasan. dad baaba laga yaabay in isweydiiyaan talo Cabdiraxmaan Celeeye muxuu ahaa iyo Mamaasan kale waa Cabdiraxmaan Celeeye Ciise heerka la yiraahdo weyn. qodobka koowaad jiritaanka Soomaaliland waa muqaddas
qodobka labaad beeshu waxay taageersan tahay wax kasta oo adkaynaya amniga dalka. qodobka kale guddigu wuxuu samaystay guddi xidhiidhiya beesha oo ka shaqeeya danaha beesha. waxaa ka mida qodobada in beeshu ay u hawlgasho sidii dib loogu soo celin lahaa dalka qaxootiyada kaga maqan Jabuuti. inay dib ugu hawlgasho sidii loogu soo celin lahaa qaxootiyada. waxaa kaloo ka mida go'aammada beesha in dadka ku barakacay waddanka gudihiisa loo hawlgala sidii loo dejin lahaa ayaa ka mid ah. waana la dejinayaa ilaahay. waxay beeshu qurbajoogga dadka qurbajoogga ee ku abtirsada beeshan cabdiraxmaan ceeleeye ama mamaasan ugu baaqaysaa inay ka soo qayb qaataan horumarka ka socda deegaanada. waxay beeshu ugu baaqaysaa xukuumadda Somaliland in ay xayiraadda ka qaado 6 goobood ee xidhan ee dalka ka mid ah ee ka xidhan codaynta ka xidhan inay ku dadaasho dawladdu siday uga qaadidaan xayiraadda ay dadkaasi u codayn lahaayeen. beeshu waxay sheegaysaa in beelaha kale ee oodwadaagga yihiin ee ay wada degaanka yihiin ee iswalaalaha yihiin inay nabad ku wada noolaanayaan oo beesha la yidhaahdo cabdiraxmaan ceeleeye nabad iyo wanaag inay u hayaan beelaha ay oodwadaagga yihiin. waxaa beeshu ay go'aan ku gaadhay markii ay tashatay 3 xisbi ee dalka ka tartamaya doorashooyinka soo socda ee lagu soo aaday inay codkooda siiso iyo taageeradooda xisbiga la yidhaahdo kulmiye musharaxa u yahay mujaahid muuse biixi cabdi. waa markii ugu horeysay shirweyne noocan oo kale ay iskugu yimaadaan beesha mamaasan isla markaasina ay ku taageereen xisbiga tantalada haya kulmiye. waa cali axmed diiriye TV-ga caalamiga Star TV magaalada Saylac.